haddii canug lagu dhalo diyaaradda dhexdeeda maxaa dhacayo sidee ayuu canugaasi dunida ku imaanayaa magaaladee ayuu ku dhashtay ayaa baasaboorka loogu qoran lahaa canugaasi jinsiyadee ayuu qaadanayaa canugani haddii su'aalahani jawaabahoodu aad taqaano hoos inoogu soo qor ka hor intaanad muuqaal ku daawan si aan u bilowno muuqaalkuna laag saar haddii uu ku cajabgeliyey mahadsanid inta badan ilmaha diyaaradda ku dhashta dunidu waxay imaadaan iyaga oo meyd ah sababteeduna waa in xagga sare atmosfeerka oksijiinteedu marka dhulka loo eego ay aad uga duwan tahay badanaa dumarka uurka leh dhalmadooda way aadka u soo dhowdahay waxaa looga digaa inay safaro dhaadheer ee duulimaad ah aysan gelin waayo duulimaadyada xagga sare waxa uu sababi karaa in dhalmadii oo aan la gaarin in canuga uu soo hormaro tanina haddii hosbitaal caadi ah ay ka dhacdo wax dhib ma lahan balse haddii diyaaraddu ay ka dhacdo dhalmo noocaas oo kale ah diyaaraddu ma lahan dhaqaatiir iyo goobo caafimaad ah oo hosbitaalka u dhigma sidaasi danteeda cimilada xagga sare awgeeda canuga inuu dhinto ayay sabab u noqonaysaa bar haddii isaga oo aan waqtigiisu la gaarin uu soo hormaray si kastoo dhacdadani in diyaaradda lagu dhalaa ay naadir u tahay haddana waa mid dhacda haddii aan u soo noqono su'aasheenna ahayd kaba soo qaad in canuga diyaaradda uu ku dhashtay isagoo caafimaad qaba magaaladee ayuu ku dhashtay ayaa baasaboorka loogu qori lahaa iyo waddankee ayuu ku dhashay haddii diyaaraddu ay dul maraysay badda dusheeda waqtiguu canuga dhalanayay qoyska canugu waxay haystaan 2 fursadood taas oo ah in canuga ay u dooraan jinsiyadooda sidoo kalena qoyskani waxa uu dalban karaa jinsiyadda waddanka diyaaradda laga leeyahay in canugooda la siiyo haddii diyaaraddu waddamada dunida ka mid ah midkuu doonaba ay dul marayso waqtiguu canuga dhalanayay waxa uu qaadanayaa dhalashada iyo baasaboorka waddankaas haddii diyaaraddu Canada dusheedu ay dul maraysay waxaad helaysaa dhalasho Canadian ah haddaba su'aashu waxay tahay adigu ma ku dhalatay diyaarad dhexdeeda waddankee ayaana dhalashadiisu haysataa